السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي جوايد سلامي ملول بعد دنيا كجوكتان كسر هذا مقال عصب ما أنتو حكاد لدونا فيتامين دي وحيابات تمها أو قبته سدا كلا سدا وقيب قاطع بحدة تمها جيرك دي أو كوي راضة وحيابها لو قدر ما على بديس لو قرته أنت بمقال كان أو بقول إن شاء الله مقال كان ديو سو قاري فتنا لايك نورس يشير قري ولا بدك صحابتي هذا كله قفل باجعشان أو عقيبتكم التيجا هدي أجعش هاي تمر دير أو خروح بدن أقصد أبرك كوتا قاضو فيتامين دي كوجو فلان أو جيرك أجسي أول شيء تمع في ماله oo qurux badan insha Allah hadii vitamin D ga jirkaaga ku yaraado calaamadaha timahaaga ku arki kartid waxa kamid ah timahaaga inay meelo barbanaan yeeshaan sida tintaada in la xiiro kala kawaabin ay yeelato mar walba moodkaaga inuu qaldamo hurdadaada inay yaraato farxadaada inay yaraato dhabar xanuun fara badan daal fara badan oo joogto ah oo wax walba hadii aad samaysid daalka ka baabi'inin calaamadaas dhan waxa ku arki kartaa vitamin D ga marka uu jirkaaga oo ku yaraado sidoo kale timaha barbanaan zaid ah daadasho xooli ah tintaadana afka hore oo ka sikato waxyaabahaas dhan waxa lagu arkaa vitamin D ga maadaama daadasho xooli ah ay imaanayso tinta waxay keenaysaa banbanaan aad u fara badan vitamin D ga timaha aad u muhiim ugu yahay sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayaa bixinta timahaaga wuxuu sare u qaadayaa caafimaadka timahaaga mar walba oo vitamin D ay isticmaashid oo joogto ku yahay timahaaga caafimaadkoodana sare ku noqonaa insha Allah fitamiino badan oo waxa jira timaha caawiyo hal uga soo hadli doona hadii aad jeceshahay timada dheer oo ku qurux badnaado oo ku dheeraado mar walba ku dadaal inaad isku dheelitirtid fitamiinka jirkaaga vitamin D ga waxyaabaha qaniga ku ay ka heli kartid waxa kamid ah qudaaraadka cagaaran sida koostada ansalaatada qajaarka malayga oo kale waa ka heli kartaa sida salmonka sidoo kale liin macaanta caanaha iyo caanaha waxyaabaha laga hagaajiyo sida jiisaska oo kale iyo batarada ama subagyada mar walba muhiim ay ku tahay caanaha inaad cabtid waxa ka helaysaa vitamin D fara badan calcium laga helaa waxyaabo badan laga helaa caanaha oo jirkana nafaqo iyo faa'iido u leh sidoo kale yogurtka vitamin D aad u qani ugu yahay caanaha liin macaanta waxyaabaha laga sameeyo caanaha sida jiisaska batarka malayga broccoli-ga waxyaabahaas dhan waxa laga helaa vitamin D waxa kale oo kamid ah beerka lo'da waa laga helaa ukunta qaybta jaalaha ay vitamin D aad u qani ugu yahay vitamin D magac kale loo yaqaan waa sunlight waxa laga helaa qoraxda subaxii qoraxeyso oo banaanka u soo bax si aad u sameystid vitamin D jirkaaga ku filan aad u heshid timahaagana ay kugu helaan caafimaad qab mar walba vitaminka jirkaaga isku dheelitir si maalinle ah u qaado qudaaraadka si aad iskugu dheelitirtid vitaminka jirkaaga ukunta waa laga helaa hadii xasaasiyad aad ku qabin beerka xoolaha meel walba oo ku imaado waa laga helaa laakiin qani waxa ku sii beerka lo'da hadii aad helaysid maanta kadib hadii timo ima baxaan timahayga way daataan timahayga quusa ka taaganahay mar walba isku dheelitir cuntada aad cunaysid si aad u heshid timo caafimaad leh dhaqso ku baxo barodhagtigaagana hagaaji dhammaan fitamiinada ay u baahan yihiin timaha maskiga aad ka heli kartid waa maskiga murinka amla xarunteena ka helaysaa xogta la yaqshid gaar ahaan suuqa tawfiiq lambarka nagala soo xiriirtaan furuha 441 mar walba ku dadaal timahaaga iyo maqaarkaaga si aad u heshid timo caafimaad leh ku qurux badnaada ku baxa ku dheeraada insha Allah tala bixin wanaagsan iyo alaab lahuba inta baa naga heli doontaa noo kaale sad dhameystiran oo ka qabtiraa dhammaan cabashooyinka timaha kana saari doona timahaaga nafaqeyrida inta ba insha Allah hadii aad cuntooyinka isticmaali karin waxa la qaataa supplement oo diyaarsan oo vitamin ah si aad u heshid vitaminka jirkaaga oo u baahan yahay mar walbana ku dadaal qudaaraadka waxa rajeynaa mawduucan inaad ka wada hesheen hadda ka wada hesheen qaybta comment ugu soo wada codeeya insha Allah waxaan noqon doonaa isbuuci hal maalin noo soo deyn doonaa insha Allah muuqaal lacayna inta aan ku kulmi doono sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.